السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعبد القادر محمد نجي وحان أشغيا هيئة ليرادة Main Immigrant and Refugee Services وحان دقنا هي قبل كمين مقالة لويستون بلشدنا معناها وان كل حجرة كمد بانا هي كل ما انت وحان روائنا هذا كان كشيغو إن عذر كان COVID-19 أما coronavirus ليرادة عذر كان وعذر aad u faafiyo oo kaga dugan cudurrada kale sida micnaha fuluga loo yaqaano marka waxaan rabay bulshada inaan fariintan aan gaarsiiyo sida micnaha kaga hortag loo sameyn lahaa maadaama aan bulsho weyn aan nahay isdhaxgalkeena aad u badan yahay meelo badan aan iskugu imaano sida masaajidada sida micnaha caruurta oo kala dhalinyarada balooniga ay ciyaaraan ama sida aroosada kale ama haddaba nagu soo socdo xilli ramadaanka oo micnaha waqti dadkii in iskugu imaanay aad loo filaayo waxaan rabay inaan sharaxo sidii micnaha kulli laaga hortaga lahaa mid koowaad waxa weeyaan in micnaha qofka xanuunsan oo aad ka fogaatid hadduu uu yahay hataa qofkaas qof micnaha qoyskaada uu kamid yahay ubadkaada uu yahay ama walaalkaada ama aabahaada hooyadaada micnaheeda waxa weeyaan qofkaas uu xanuunsan yahay waa adag micnaha uu kugu taaban karaa cudurka deen aadna waxa laga yaabaa qofkii kale markaas xiriir leedahay in micnaha ku faafisid marka waxaan u maleynayaa hadda inta badan iskuulaadka micnaha magaaladeena oo ay xiran yihiin waxaana loo xiray si micnaha cudurkaas faafintiisa uu yaraado micnaheeda ma aha xilli oo micnaha vacation ama caruurtii ay nasanayeen ma ahan haddii mar iskuulkii uu xiran yahay lagu dhahay micnaha xaafadaada joog ku ekaaw waa in qof walba micnaha xaafadiisa uu joogo hataa dariska micnaha socodkiisa inuu u yareeyo kan vacation ma ahan micnaha cudurka ayaa laga hortagayaa haddii hal qof oo bulshadeena kamid ah hadduu ku dhaco cudurkaas aad ayuu u bilaaranayaa waxa waaye dariskii cidii qoyskii ku dhaca dariskii ku dhaca bulshadii ku sii weynaanaya waxaa la soo faray in micnaha 6 feet qofka micnaha inaad ka fogaatid haddii aa isdhahdid maanta oo kale qof micnaha xanuunsan qofkan ma garan kartid inuu micnaha cudurkaas qabo ama uu xanuunsan yahay hadaa aad dhahdid waan la ciyaarayaa ama waan taawanayaa gacantaas oo kale aad u taagaya waa waxaas dhan waa waxa micnaha in oo bulshadeena iska ilaaliyaan loo baahan yahay waa la ogsanahay waa mid micnaha dhaqankeena marmar inuu ka hor imaadsan yahay laakiin xagga caafimaadka ayuu ku jira in micnaha social distancing-gaas la dhahay in la raaco ama lagu dhaqmo teeda kale waxaa meesha qodob jira in micnaha qofka uu ishiisa ama dhegtiisa ama afkiisa taabashada uu ka ilaaliyo waxa weeyaan meelo badan ayaa laga yaabaa maanta inaad banaanka aad soo aadid micnaha albaab inaad gacanta aad ku qabatid oo cudurkaas ama qof micnaha jeermiskaas oo kale meeshaas uu ku dhagan yahay marka ishoo kale haddii micnaha ay ku cuncunto ama afkaada waxaa laga yaabaa inaad warqad aad micnaha ay kugu adkaatay inaad gidisid micnaha candhuuftaada ay isticmaashid marka waxyaabahaas oo dhan inaad iska ilaalitid waa intaad afkaada ama gacantaada ama sankaada taabanin isku day in micnaha gacmahaada aad dhaqdid saabuun ilaa 20 miro camal micnaha oo second inaad micnaha gacmahaada biyo aad ku dhaqdid kadib aad ishaada ama waxa markaas hadii qashan ama wax uu kaaga jiro si aad u taabatid laakiin intaas waa inaad iska ilaalisid waxa kale jira inta badan qofka in macnaha hintisho ama qunfac oo kale uu u baahnaado marka isku day in micnaha tissue aad isticmaashid tissue-gaas hadii uu ku san dhaween waa in micnaha garabkaada oo kale aad isticmaashid ama maro nadiif ah aad isku hubtid haday jirto maradaas taa waa isticmaali kartaa kadib waa dhaqi kartaa ama waad gami kartaa marka tishkaas iyo waxaad markaas aad isticmaashidba labadaba inaad micnaha trashka aad ku gantid isku day waxa kale jira dhaqankeena hadii oo micnaha family ahaan marmar inaan iskugu imaano ama dariska oo kale miisaska oo kale ama meesha cuntada lagu cunaayo ama meesha jikada oo kale ama xafiis hadaa joogtid oo kale kulli waxa weeyaan in micnaha iska nadiifisid si jeermiskaas oo kale waxa laga yaabaa inuu kor saaran yahay si micnaha daawadaas aad kugu buufisid inta badan waxa kale waana in micnaha jig iyo waxyaabo sun oo khatar marka uu ku keeni kara inaadan isticmaalin waxa kale jira in micnaha guriga aad joogtid hadaad ogson tahay inaad xanuunsan tahay hadii qofka micnaha uu xanuunsan yahay waa laga yaabaa caafimaad isbitaal oo kale u baahnaado laakiin ma ahan in micnaha adoo xanuun ama wax kale banaanka aad u baahan inaad iska baxdid waayo waa meelaha micnaha qofka dhibaatada ay ka soo gaari karto isku day in xaafada aad joogtid hadii micnaha aad xanuunsan tahay hadaad iska shakaysid oo micnaha aad hubin
cudurkaasna macnaha inaad qabtid ama inaad qaban intaad isbitaalka tagin ka horna waa inaad wacdid dhakhtarkaada aad la xiriirtid meelo badan ayaa jira macnaha oo baaritaankaas lagu sameyn karo sida isbitaalada oo kale meelo kale oo haddana kulley ay soo sheegi doonaan oo clinic yaal oo ay jiri doonaan hadduu ilaa yiraahdo laakiin waxaa loo baahan yahay qofka hadduu mar uu xanuunsan yahay in uu xaafadda uu joogo wixii dardaaran waa intaa teeda kale ani ahaanteeda shakhsiyan bulshadayda ayaan u taaganahay wixii markaas macluumaad ah in macnaha aan la wadaago sida macnaha akhbaarada ka imaanayaan dawladda ama bulshada weyn maadaama macnaha dadkeena ay iska yihiin dad oo luuqadda inta badan aan aqrin karin ama aan qori karin in macnaha wixii akhbaaraad ay soo gaaraan ama aan haayo inaan la wadaago hadday noqoto macnaha waxyaabaha akhbaarta hadda oo kale aan siiyey iyo hadday noqoto video inaan duubno oo af Soomaali ama luuqadda markaas oo ay ku fahmi karaan inaan macnaha aan gaarsiino ama sawiraan oo kale in macnaha wixii sawir ahaan muuqaal marka ay ku fahmi karaan inaan la wadaagno teeda kale waxaa macnaha bulshadeena kulley aan ku caawinaynaa in macnaha qofka haddii maadaama aan dhahan xaafadda la joogo haddii qofku uu xanuunsan yahay dadka doqoshiinka oo kale waa in macnaha wixii oo si macnaha bulsho ahaan oo ayaan macnaha cunto ahaan si macnaha loo gaarsiiyo xaafadooda loogu geeyo taasna ayagana kulley insha Allah waan ka shaqeynaa hadduu ilaa yiraahdo waxaa kaloo jira caruurta macnaha maadaama iskuulka uu ka xiran yahay in macnaha qadadoodii ay iskuulka ku cun lahaayeen meeshan ayaa kulley la keenaa maalin walba shanta maalin isniin ilaa iyo jimco waa 10 subaxnimo ilaa iyo 12 duhurnimo ayaa cuntada la qaybiyaa wixii bulshada marka ay u baahan yihiin in macnaha xaafadda loogu geeyo caadi ayaa loogu geenayaa oo aan imaan karin ama haddii waalidka ay rabaan in caruurtooda ay u qaadaan ayagana kulley waa imaan karaan oo caruurtooda cuntada waa u qaadi karaan wixii kale oo turjuwaannimo hadday noqoto ama inay bulshada macnaha aan dhaxgalna hal aan ugu sharaxno diyaar ayaanu ahay inta ayaan kulley bulshadayda aan la wadaagaya maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh